islaamka waxay xaaraamtinimaysay in qofka walaalkiisa kale muslimka ah caybtiisa uu qodqodo uu raaraaco uu raaraadiyo kadibna dadka kale uu u sheego nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay qofkii astura qof muslin ah qof mu'min ah qofkii astura in asigana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu asturayo u cayb qarinayo looma baahna marka in qofka caybtiisa inuu qofka uu raadraadiyo nebiga sal ly slam xadiis kale wuxuu leeyahay qofkii qof kale mu'mina caybtiisa raacraaca raadraadiya dadka kale u sheega fadeexadeeya in asigana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fadeexadeenayo qof walba anaga naga mid taha wuxuu leeyahay qayb wanaagsan iyo qayb kale ayuu leeyahay qof dhammaystiran ma lahan qof walba anaga naga mid taha cayb ayuu leeyahay ma ogolaan lahayd adiga in caybtaada la faafiya dadka kale loo sheega ama internetka aad ka aragtid ama si walba ha ahaato waa maya soo maahan annagana looma baahna marka waxaa loo baahan yahay in walaalahayna aan asturno dadka kale waxaan la jeclayn nafsadeennana lama jeclo waxaa loo baahan yahay marka in aan walaalahayna aan u cayb qarin oo aan asturno si anagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo asturo aan ku dadaalna arrintaas insha allah